gabana waayeel cimriya waalid lagu faano madaxweyne iyo heer wasiir ama wakiil dawlo wadaad shiikha weydcaata badan wabarka xoogaystay weli iyo rasuul iyo hadiyan waxar la reebaynin alla waaxid mooye haddaan cidiba waaraynin kuwan wara wardiga aakhira layska wacayaaye بسم الله الحمد لله وثناء لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل صدحات iyo casharkii ama duruustii noo socotay ee ahaa sound insha Allah casharkeena wuxuu noqon doonaa finding the speed of sound using wavelengths and frequency helitaanka xawaaraha jabaqda iyadoo la isticmaalayo wavelengths iyo frequency labadan qodob runtii waxay ku jireen waveska waxaana cadeynayaan sound inuu ka mid yahay maxaan ku raahdaa waveska waa characteristics of waves characteristics of waveska waxa kamid ahaa casharkii ugu dambeeyay aynu ku soo jirnay aynu kaga soo hadlaynay speedka isaga runtii hadaynu isir xasuusino waxyaabaha aynu ka soo hadalnay waxa kamid ahaa speed of sound xawaaraha soundka ee uu ku dhexmarayo mediaha kala duwan ee ay kamid ka ahaayeen solidka liquidka iyo gaseska waxaan tilmaamnay soundku inuu ugu dheereeyo markuu dhexmarayo solidska waxa ku xiga baynu liquidka wuxuuna ugu gaabiyaa baynu tilmaamnay gaseska waxaan tilmaamnay speed of sound inuu ka gaabiyo speed of light bal waxaynu eeganaa sida loo calculate gareeyo speed of sound iyadoo la isticmaalayo wavelengths iyo frequency labada qodob guud ahaan waxaynu naqaanaa speed in lagu helo distance divided by time speed nooc doonaba ha ahaado waxa lagu helayaa distance divided by time speed of sound waa kamid oo waxa lagu helayaa distance oo loo qaybiyo timeka haddaba marka la qeexayo wavelengths halkan aynu joogno wavelengths waxa lagu qeexiyaa waa distance between two successive compressions waa masaafada u dhaxaysa laba compression oo isku xiga bal matalan haddii sawirkan halkan kaga muuqda uu yahay sound wave matalan waxaanu tilmaamnay particlesku meelaha qaar way isku aad bay isugu dhawaadaan oo waxay sameeyaan compression meelaha qaarna way kala durkaan oo waxa la yiraahdaa rarefaction haddaad eegto matalan compressionka iyo compressionka masaafada u dhaxaysa waxa la yiraahdaa waa one wavelength ama waa one lambda ayaa la oranayaa marka distance-ka u dhaxeeya laba compression oo isku xiga ayaa la yiraahdaa wavelengths mar haday marka wavelengths noqotay distance dabcan waxaan oran karnaa speedki de halka distance-ka waxa gali kara wavelengths marka speed wuxuu noqonayaa waa wavelengths oo loo qaybiyo time ayuu speedka noqon karaa speed waa wavelengths divided by time ayuu noqon karaa laakiin ogow timeka laftarkiisu wuxuu noqon karaa if time is the period haddii timeka laftarkiisu yahay period waa time taken for one wave timeka lagu qaadanayo hal wave tusaale ahaan oo kale marka haddii timekina uu noqdo period halka timekana period ba soo gelaya marka speed wuxuu noqonayaa wavelengths oo loo qaybiyo periodka calaamad ahaan ama symbol ahaan hadaynu qorno waxaan oran karnaa speed waa wavelengths oo loo qaybiyo time and period ama v equal lambda of a period lambda of a t v waa speed calaamadan oo lambda ah lambda waxay u taagan tahay wavelengthska t duna waa periodka bay u taagan tahay waxaynu hore u soo aragnay periodku ama waveska waxaynu ku soo aragnay period inuu la mid ahayd 1 divided by frequency periodku wuxuu la mid ahaa 1 divided by frequency marka halka ay period taala laftarkeeda waxa lagu bedelayaa 1 divided by frequency arintaas waxay noo muujinaysaa inuu speedku inoo leeyahay lambda divided by 1 of a frequency ama 1 of a f macnaheedu waxay ka dhigan tahay speed wuxuu leeyahay lambda divided by period oo periodku yahay 1 divided by f periodki baa 1 divided by f arintaasna waxay noo sii muujinaysaa speedku inuu leeyahay lambda times f marka guud ahaan speed of a wave waxa lagu helayaa wavelengthska oo lagu dhuftay frequency-ga labadana la isku dhuftay speed equals lambda times f ay noo leegtahay okay example what is the speed of sound wave with a frequency of 212 Hz and a wavelength of 2 meter waa maxay speedka sound wave-ka ama jabaqda frequency-geedu yahay 212 Hz wavelengthskuna waa 2 meter marka waxaynu meesha ku haysanaa
kow waa frequency oo ah 212 hertz iyo wavelengths oo ah 2 meter. labada mar haddaad hayso waxaa la raadinayaa marka waa speed. waxaanu soo aragnay speedka in lagu helayo wavelengths oo lagu dhuftay frequency-ga. speed equal wavelengths times frequency. marka labadoodii isku dhufo, wavelengths-keena waa 2 meter, frequency-geena waa 212. saa daraadeed speedka wuxuu inoo leekaanayaa 2 lagu dhuftay 212 oo u dhigma 424 meter per second ayuu speedka inoo leeyahay. qaacidun baan toos isticmaalnaa runtii. questions with answers waa su'aalo jawaabahoodii wataa. su-aasha koowaad waxay odhanaysaa what condition is necessary for a sound to travel from one place to another. waa maxay xaaladda ama conditionka lagama maarmaanka u ah jabaqdu si ay uga socoto meel oo ay meel kale u tagto? okay, jawaabta waxa weeye waa in la helaa vibrating source and material medium. source soo saaraya, sourceka soundka soo saaraya waa source gariir sameynaya vibration, iyo material medium particles leh oo gudbin kara dee jabaqdii. su-aasha labaad distinguish between compressions and rarefactions in a sound wave. waxaad kala saartaa labadan qodob, compressionka iyo rarefactionka sound wave-ka ayaad kala saaraysaa. okay, compression waa high pressure area, rarefactionna waa low pressure area. labadaa jawaabood bay simple kala leeyihiin. okay, waxaan u soconaa properties of sound, astaamaha soundka ama jabaqda. astaamaha jabaqdu waa astaamihii waveska oo dhan. marka jabaqdu waxay leedahay dhammaan astaamihii waveska ay lahaayeen ee ka midka ahaayeen refractionka, diffractionka iyo interference-ka. dhammaan astaamahani waxay ahayn astaamaha waveska lagu yaqaano. soundkuna waa wave motion, marka astaamihii waveska oo dhan buu yeelanaya isaguna. haddaynu ka horeyno matalan reflection of sound. reflection waa soo noqodka jabaqda. jabaqdu marka ay ku dhacdo meel ay dhaafi kari weydo dib baa loo soo celiyaa, marka reflection baa ku dhacay baa la odhanayaa. okay, haddii matalan qof uu dhawaq sameeyo dabeeto dhawaqaasi uu ku dhaco meel obstacle ama maxaan ku dhahdaye reflector gidaar oo kale uu ku dhaco, dhawaqii dib buu usoo noqonaya, marka waxaa ku dhacay reflection. jabaqdii dib baa loo soo celinaya, dhawaqa dib usoo laabtay waxaa loo yaqaanaa dayaan ama echo ayaa loo yaqaanaa. okay, it obeys law of reflection. reflectionku wuxuu adeecaa xeerkii reflectionka. xeerka reflectionku muxuu ahaa? xeerkan wuxuu odhanayay angle of incidence equal angle of reflection. angleka incidenceka wuxuu leegaa angleka reflectionka ayuu leegaa. taasi waxaynu kusoo aragnay runtii lightka. soundkuna waa la mid, oo tusaale ahaan oo kale haddii jabaq matalan meel kasoo baxday ay ku dhacdo surface isku siman oo ay angle ugu dhacdo, angle leg bay jabaqdaasi reflection u samaysaa. oo matalan saacadaasi haddii ay dhawaq samayn lahayd ama dee ay dhawaqba samaynayso tusaale ahaan oo kale, oo dabeedna la hordhigo tube, dhawaqaasi hadduu tube-ka dhex maro matalan haddii dhawaqaasi isagoo tube-ka dhex socdo tube kale dhinacaan la dhigo, oo laakiin tube-kaasi angalka uu la samaynayo normal line-ka iyo tube-kan angalku normal line-ka la samaynaya ay isleegyihiin, qofka dhawaqa dhegeysanaya toos buu u maqlayaa, si kaleera ayuu sound waveska dhigiisa usoo gaarayaan. taasina waxay caddaynaysaa inuu adeecayo ama uu raacsan yahay xeerka la yidhahdo law of reflection oo ahaa in angle of incidence uu leeyahay angle of reflection. okay, echo waa dayaan. dayaanku waa codka soo noqday baa la yidhahdaa dayaan. echo is the reflected sound. echo waa jabaqda soo noqotay ama dayaanka lagu sheegaya waa jabaqda soo noqotay. waad maqlaysaa matalan haddaad guri cidla oo aan qof binaadmi dhex joogin aad ka dhawaaqdo, mar labaad baad codkaaga maqashaa, macnaheedu waa codkaagiiyo dib kuugu soo noqday, dayaan baa la yidhaha. marka waxaad maqlaysaa waxaan dambe aad maqlaysaa waa dayaankaagii. ama meel buuraa oo kelidaaya haddaad isdhex taagto oo aad dhawaaqdo, buurahaasi codkaagiibay dib kuugu soo celinayaan, waxaad maqlaysaa marka waa dayaankii. waxaa laga yaabaa dayaanka inaad dhowr jeer maqasho oo isdaba yaala haddii dhowr buuroodo kale kaani ay jiraan. goormaa la maqli karaa echoga? echoga horta waa reflected sound. echo is the reflected sound. echo waa jabaqdii kugu soo noqotay ama reflection lagu soo sameeyey. it can be heard 0.1 second after the original sound. waxaa la maqli karaa 0.1 second markuu kasoo wareego codkii caadiga ahaa. horta haddaad dhawaq samayso waxaad maqlaysaa ee dhegtaada gaadhaya waa codka adiga kaa soo baxay.
in yar dabadeedna waxaad maqlaysaa waa deegaankii ama echoogii baad maqlaysaa laakiin deegaanka iyo echoga timeka ugu yara inuu u dhaxeeyo la ogol yahay waa 0.1 second 0.1 second wax ka yar ama waqti intaa ka yar waxay soo gaadhaya codkaagii iyo deegaankiiba mar dhigtaada soo wada gaadhaya marka waxa laga yaabaa inaad echo madax banaan maqli kari weydo marka waqtiga ugu yar ee deegaan lagu maqli karaa ama echo lagu maqlaa waa 0.1 second waxaan oran karnaa waa least echo time haddii bal matalan qof uu sameeyo dhawaq qofkani for example haddii uu dhawaq sameeyo dhawaqaas marka uu ku dhaco matalan gidaarka dee reflection buu sameynaya oo dib uu isaga ugu soo noqonaya marka hore dhawaqiisa uu maqlayay reflected sound kana uu maqlayay dhawaqa hore ee soo baxay waxa la oranayaa original sound deegaanka ama soo noqodkan dambe jabaqda ku soo noqotayna waxa la oranayaa echo ama waa deegaankii bayna oranaynaa waxaanu tilmaamnay waqtiga ugu yar ee echo lagu maqli karaa inay tahay 0.1 second waa least echo time waqtiga ugu yar ee echo lagu maqli karo waa 0.1 second waa least echo time ayaa 0.1 second okay waxaynu heli karnaa masaafada ugu yar ee echo laga maqli karo waa shortest distance echo laga maqli karayo haddii bal matalan aynu isticmaalo qaacidada ahayd distance in lagu helo speed times time isla markaana aynu garanno de soundku inuu distance jaray markuu sii socday markuu soo socdayna uu distance leegun jaray waxa weeyaan same distance waayo source-kii uu ka tagay buu ku soo noqday jabaqdii markana d buu jaray markuu soo noqonayo d buu jaray marka total distance ay jartay echoga waa 2d baynu oran karaynaa okay haddaynu bal matalan gifanka aynu soo qaadano waxyaaba aynu u baahannahay oo kale distance-ka echoga ay jartay waxaynu oran karnaa waa 2d distance-kaas iyadu waa 2d baynu oran karnaa waayo echoga waxay jartay ade marka ninkan echoga dhegtiisu waxay dhegta ninka echoga soo gaaraysaa markuu codku jaro d ee haddana uu d dib soo jaro ayuu maqlayaa echoga marka waxaan oran karnaa echo distance-ku waa 2d baynu oran karnaa haddii maalin hawadu ay aad u qabowdo 0 degrees celsius ay tahay dabeedna marka speed of sound kuna uu ahaa 331 meter per second macnaha 331 meter per second timeka ugu yara echo lagu maqli karaana ay tahay 0.1 second waa least time echo lagu maqli karaana ay intaa tahay waxaynu heli karnaa masaafada ugu yar ama distance-ka ugu yar ee ay suuragal tahay in echo laga maqlo waxaynu oran karnaa markaa distance-ka guud ahaan maadaama lagu helayo dee speed times time haddaynu nidhi distance-ka waxay la mid tahay 2d marka 2d baynu ku bedelanaa halkeeda speedkiina waa 331 331 baynu dhiganaa echo timeka ugu yarna waxaynu qaadanay 0.1 marka 0.1 baynu ku bedelanay marka d baynu helinaa dhinac walba laba haddii loo qaybiyo distance-ka waxay noola mid noqonaysaa 331 times 0.1 divided by 2 marka labadaa la isku dhufto labana loo qaybiyo waxay noo soo baxaya 16.5 meter approximately 17 meter baynu oran karnaa waa masaafada ugu yar ee echo aad ka maqli kartaa ugu yaraan waa adu ugu dhawaan waa 17 meter baynu oran karnaa 17 meter wixii ka yar echo ma maqli kartid wixii ka badanna echo waad maqli karaysaa The obstacle must be at least 17 meter away for distinct echo to be heard. Obstacle-ku ama gidaarku reflector-ku kan codka soo celinaya must be waa at least 17 meter away ugu yaraan waa inuu ku jiraa 17 meter for distinct echo to be heard si echo madax bannaan loo maqlo echo kelideeda oo aanu cod kale tarixin si loo maqlo waa inuu source-ka codku ka soo baxay iyo halka codku ka soo noqonaya waa inay 17 meter ugu yaraan isku jiraan waa inta ugu yar distance-ka ugu yar baynu oran karnaa ee echo laga maqlayo ama laga maqli karo okay haddii distance-ka looga dhawaado maxaa dhici kara if the reflected sound is nearer than 17 meter haddii jabaqda soo noqonaysaa ay ka dhowdahay 17 meter ama meel 17 meter masaafo 17 meter ka yar ay kaaga soo noqoto jabaqdu the echo joins up with the original sound deegaankii waxay isku biirayaan codkii hore caadiga ahaa codkii caadiga ahaa ayaad maqlaysay iyo deegaankii baa isdhexgelaya kabacdi markaa echo madax bannaan ma maqli kartid cod caadiya iyo deegaankii baad mar wada maqlaysaa
dabeedna it causes an effect called reverberation. taasina waxay sababtaa saameyn loo yaqaano reverberation ama waxaynu odhan karnaa buuq noise ayay sababaysaa. markay laba cod isdhex galaan waxa dhasha meesha buuq baa ka dhalanaya. reverberationkuna waa waxyaabaha runtii laga ilaaliyo hoteelada oo kale marka la doonayo in laga ilaaliyo jabaqda. matalan hoteelada waxa loo sameeyaa waxyaabo echoga lagu yareeyo. hoolka hoteelku haddii aanu hool weyn ahayn isla markaana loo sameynin buushash iyo waxyaabo codka absorption ku sameeyo oo ka nuuga codka meel ka baxaya intuu gidaarada ku dhacaabo dadka dib ugu soo noqonaya. dabeedna waxay isdhex gelaya codkii caadiga ahaa iyo dayaankii ama echogi. dabeedna waxa meesha ka dhalanaya reverberation baa ka dhalanaya. halkii cod caadi laga maqlaa baa laga maqlaya buuq noise aan loo baahnayn baa laga maqlaya.